20 أكتوبر هدان كهذا الله وحقبت كي وقبت 20 سنة 20 سنة وجري وحوين أيها مركا لقى هاد لهايو دقاله وحال قبتي بيره ددكي أباروه قليل oo gobolada dhexe iyo waqooyi meel walba deganaa ayaa inta beer loo sameeyay koonfur la diji kalluumaysataa laga dhigo Soomaalida kalluumaysa la baray awalna dad yaraa kalluumaysan jiray dhaqaalihii baa kor u kacay waxa la sameeyay san sheegaya bi xireenna la wada in la sameeyo xagga dhaqaalaha kor ayaa loo kacay warshadaha la sameeyay aan weligeed Soomaaliya laga sameeyay oo nooc kasta intaas markii dhinaca laga sameeyay waxa ka sii horeeyay oo ka weynaa tacliinta degmo kasta iyo gobol kasta waxa la gaarsiiyay dugsiyo hoose dhexe iyo kuwa sare intaba Soomaaliya oo aan jaamacad lahaan jirin jaamacado mid ka badan ayaa loo sameeyay oo fakultooyin badan leh tacliintii halkaasay martay af Soomaaligii baa la qoray oo waxa ugu weyn oo taariikhda galay ahaa af Soomaaliga Soomaalidu waxay ku hadli jirtay ama qoran jirtay qaar Ingiriis qaar Carabi qaar Talyaani qaarna waxay ahayn Faransiisku kuwa gumaysanayay Faransiis bay ku hadlayeen qaarna Ethiopian bay qorayeen qaarba wax bay qori jireen af Soomaaligi shayga ugu weyn oo xaggaas tacliinta iyo dhaqanka laga sameeyay ayuu ah Soomaaligi baa la qoray laba qorid kaliya lagu ma daynine ololaa la qaaday ololahaas balad iyo baadiyaba waa la marsiiyay geedaha hoostooda inta dadkii la fariisiyaa loo akhriyaa baata loo akhriyaa waa la bartay waxqabadkii kacaanka waxa kaloo ka mid ahayd sumcaddii ummadda Soomaaliyeed ay ku lahayd adduunka oo burburtay ayaa soo noqotay wax oo 9 sano ka horeysay aad hoos u jirtay ayaa soo noqotay kor baa loo qaaday meel weyn baa la gaarsiiyay waxa dhacday gobonnimo doonadii ka socday Afrika halgan inaan u galay si ay u xoroobi lahaayeen South Africa ka mid tahay Angola ka mid tahay Mozambique ka mid tahay Djibouti ka mid ahayd kullu inaan galay kharash in lagu bixiyay ciidamada loo tababaray ciidamadoodii kuwa iyaga rag saraakiilu inay tageen inay meesha ka soo dagaalameen in la xoreeyay oo gumaysigii laga xoreeyay waxyaalaha nala ku nacay oo qarbigu nagu nici doonay ka mid tahay oo ay cirka sida u marayso oo hawshaas ay sida u socoto khaladaadkeedaba hal ahaatee waa la sheegi doonaa ayaa dagaalkii 77kii la galay dagaalka waxa loo galay qof walba waa ogyahay dhalinyarada hadeen ogeyn Soomaalida qaybsamay qaybo kamid ah in la soo celiyaa loo galay dagaalkaas markii la galay dhibaatadii ka dhacday ayay ahayd burburka tii keentay dhibaatadaasna waxa sabab u ahaa labada dawladood adduunka u waaweyn dawladda Mareykanka ay ahayd oo waxayba la jirtay Ethiopia la jirtay dawladda Ruushka ay ahayd oo annaga saaxiib ahayn oo annaga ay iyaga gacanta isaysanay dawladdaas Soviet Union baa la dhahay markaa Ruush ma ahayn dawladda Soviet Union ka labada dawladood adduunka weyn kamid ahayd markaanu caradii qabanay oo dhulkii galay markii horena gelinayna yiraahin dagaalka markaan galayna ka soo baxay yiraahin dagaalka ka soo bixi maynaan niro ku madax adkaysan markaan ku madax adkaanay oo aan isleenahay idin kama tagi doonaan iyagina xargaha inay noo jaraan bay goosteen duulaanna soo qaadaan dalalkii xulufada la ahaa oo Warsaw la yiraahdo dawladahoodii ciidamadoodii iyo Cuba iyo Yemen ku takoofure ciidamadeedii oo dhanna inta la soo qaxeeyo iyo diyaaradihii in la rusheeyo ciidamadayadii oo nala ka xog bato oo khasabna la kaga soo saaro goboladii aynu ka xoreynay gumaysigii halka markay arrintaas marayso oo burburkaas u dhacay ayaa horta burburkii ugu weynaa dalka qabsaday labadii dawladood adduunka ugu weyn midna waa tan la dirtay midii kalena wax allaale wax gacan oo ayna siisay ma jirin walow ay markaas lahayd waxbaan idin la qabanaya markii Sooviyetkii xiriirka loo gooyay xiriirka Sooviyetka
oo xumaaday idaacadda ninkii ka sheegaanaha wasiirka warfaafintaanaha xiriirkaas markaa inuu sidaas u xumaanahayo ninkii sheegay baana arrintaas waa arrintii waxay noqotay keentay haddana burbur ciidamadii soo laabtay oo dagaalka soo galay waxna lagu laayay oo ciidamo reer marka qaarkood meelo badan laga keenay ahaa iyo xaaladii oo sidaa u liidata waxay keentay dhaqaalihiina inuu dhulka ku dhaco carab badanuna ay timaado oo dagaal baa nala geliyey dagaalkii waa lagu soo jabay waxba ka soo baxnay waxaan qabanno garan mayno waxna loo qabto male dhaqaalihii baa kacay shilinkii baa hoos u dhacay weerarka iyo qayladaasaa timid waxaa timid jabhado laga xukumo dalal shisheeye inay soo baxaan jabhadahaas oo magacyo badan lahaa waxaa timid inay ololo galaan qabaa'ilkii ololeeyaan qabaa'ilkii inay dagaal galaan inay ololeeyaan dowladdii kacaanka in lagu kaco inay ololeeyaan waxaa timid in dagaalo la soo qaado oo dowladdii lala dagaalo dowladdii kacaanku dagaaladaas jawaabtii ay ka bixisay waxay ahayd jawaab aan u dhigmin runtii oo burbur badan keentay oo xasuuq badan keentay beelihii ama gobollada dhexe ha ahaadeen ama ha ahaadeen waqooyiga ama koonfur ha ahaadeen raggii dagaalahayay beelahay ka soo jeedeen dagaal xoog leh iyo xasuuq baa loo geystay xasuuqaasuna mid dhibaato keena isaga ayuu noqday dowladdii ku-meel gaarka ahayd anigu aan joogay xooggeeda hooda looga soo qaaday qabqablayaal dagaal oo dadkii xamar ku haray inta badan ka soo jeeda ayaa la maalgeliyey oo inta maraakiibta maraykanku badda timaado xeebaha u dhow xamar oo laashash la soo qaato hameenbarkii jasiire agteeda meela oo daara oo korontadu ku taalay inta la keeno nimankaasoo jooga qabqablayaasha hebel iyo hebel iyo hebel aan lahayn qaarkoodna nool iyo qaarna dhintay inta loo keeno lacag malaayiina dagaalka sidaa u wada in la yidhaaho ayaguna ciyaalkoodii inay hawlgeliyaan saas inay ku degi weydo dalka inuu sidaa ku degi waayo waxaa dhacday in la yidhaaho dowladda tanuna dowlad waxaa weeye islaaxa oo nimankan hadda shabaab sheeganayoo kale inta lagu shaabadeeyo la yidhaaho ayaan wax lala qaban waxaa dhacday in la yidhaaho ha lala dagaalamo oo ay madaafiici soo ridaanoo magaaladii xamar laftigeeda manwaan madaafiici ka soo ridaan dabadeedna ay noqoto in lagu kaco inkastoo ayaan wax weyn geysan nimankaa oo hebel iyo hebel iyo hebel soomaalidu ay wada taqaan haddana waxba aan ka sheegayn qaarkoodna baarlamaan ba hadda ku jiro ayaa la howl gashtay saasay taasuna ku degi weyday hadday degi weydana annagu waxaanu niri ummadda soomaaliyeed inay baaba'do oo gacantayada wax ku gaaraan diyaar uma ihin ciddii aad rabtaan doorta